Waxaa saacadihii ugu dambeysay baraha bulshada ee barta social media qabsaday fanaanka caanka ah ee Ismaaciil Arka oo guurkiisa baraha bulshada saacadooyin yar qabsaday asiga iyo qoftiisa boqoradiisa lamaanaha ee jacaylka xiriir wadaaga oo ka dhaxeeyay oo hadda la keenay sawirradooda in ay arooskooda uu waqti yar oo aad u yar kooban uu dhacay. Si aan kula wadaago fadlan nagu soo biiro asxaabteena ka mid noqo adigoo janaalka subscribe dhaanaya gambaleelkan u furanayo muuqaalkana like la dhacay wixii fikraad ka qabtidna qaybta commentiga noola wadaag. maanta oo kalena hambaliyeenta waa dhankiina. fanaanka la leeyahay Ismaaciil Arka oo fanaaniinta Soomaaliyeed ka mid ah oo dadka badana Soomaalidana ee codkiisa macaan ee jecel yihiin fanka Soomaaliyeedna waqti aad u xoogan uu ku jiro oo hadda laakiin lamaana jacayl xiriir wadaag uu sameeyay. fanaanka Ismaaciil Arka oo saacadooyin yar oo kooban barta social media gaar ahaan barta Facebook sawir asiga iyo qoftiisa jacaylkiisa oo ay iskula jiraan la soo dhigay iyo dad baraha bulshada caanka ay u hambalyeynayaan. Hambaliyeentana ay dhankooda ay noqotay maadaama Ismaaciil Arka iyo qoftiisa ay aqal galeen mar dhow arooskoodana uu ka dhacay magaaladaasi Muqdisho, sidaasina lagu soo dhigay sawirradoodana oo saacadooyin yar oo kooban barta Facebook aad u gelgelay dadka Soomaaliyeed oo idilna dadka qaarna ay ku faraxsan yihiin maadaama Ismaaciil Arka oo fankiisa Soomaaliyeed ay ku dhisan tahay dad badan ay taageersan yihiin. inta fanka Soomaaliyeedna uu ku jiray laga arkin khalad ama lagu arkin ama waxyaabo asiga dhankiisa laga arsheeganayo. fanaanka Ismaaciil Arka oo hadda guurkiisa uu ku qabsaday magaaladaasi Muqdisho haddana oo qoftiisa lamaanihiisa ay wada faraxsan yihiin sidaad sawirka ka arki kartid daawade, maadaama saacadooyin yarna hambaliyeenta ay qabsatay dad badanna ayba u maleynayeen Ismaaciil Arka iyo guur in uu ku guda jiro maadaama laga filaynin uu kasoo kordhacay guurkiisana ay dad badan kadis ay ku noqotay. dad badan oo asxaabtiisa ka mid ah Ismaaciil Arka oo maadaama fanaan Soomaaliyeed uu yahay asxaabtiisa ka mid ahna ay ku farxeen fankiisa Soomaaliyeed iyo taageeranimadiisana obol ay la garab taagnaayeen mar walbo, haddana ayba ku faraxsan yihiin dumaashi in uu u keenay haddana uu nin aqal galay oo magaalada ka xarooday uu yahay. Ismaaciil Arka ayaa daawade saacadooyin yar oo kooban guurkiisa baraha bulshada aad hadalhayn u dhalisay maadaama fanaanka oo laga filaynin iyo hadda guurguur iyo waxaasi inuusan u qorshaysnayn uu kala soo kordhacay asxaabtiisana kadis uu ugu dhigay sawiro uu la soo galay qoftiisa iyo asiga oo wada faraxsan oo laabta iskula jiro baraha bulshada la keenay. saas darteedana ay dadka asxaabta oo idilna ay u wada hambaliyeeyeen guurkiinan guur lagu naga Allah ka dhigay wad khayr qabo. sidaas ayaan iga tagaynaa. mac salaama.